وسليدي تمها نفقينيسي كإلالينيسي دادشدا سيبشدا تمها بixi waaye timaha gurmo nafaqa ay siinaysaa weena kubcinaysaa hadii ay timahaada ku bixi waayeen adiga iyo gabdhahaadaba waxaan idin soo saarnay saliida dadka waaweyn iyo ciyaalka bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay inta ku xiran janalka Karin iyo Qurxin hadii ay tamarkii ugu horeysay soo booqatay subscribe dheh Karin iyo Qurxin maanta maxay idin wadaa waa saliidihii waa alaabihii laga daba dhacay ma fahamteen oo aan aniga dhowr jeer anigoo isticmaalay aragteen oo ku darsanay nafaqooyinka markii aan suubinayo kaleento hanaansan waa saliid dadka waaweyn iyo ciyaalka labadaba u qaybsanto sida hortiina ka muuqato waa saliid dadka ciyaalka iyo saliid dadka waaweynka midda oo ciyaalku waxaan ugu soo sawirnay color ay jecel yihiin oo qurux badan ilmaha kalarada ay ka dambeeyaan dhooliyo qurux badan ay jecel yihiin maasha Allah waana nafaqo timaha ay kobcinaysaa fitamiinada ka maqan ayayna siinaysaa maxaa idin leeyahay hadii ay timahaada ku siibmeen ku daateen ku gurmeen ku bixi waayeen timahaada ay yihiin timo yar oo aan badnaynin aniga ayaa arko gabartayda ayaa timaha aad iyo aad uga yareed intii tijaabada ku socotay oo aan ku tijaabiyay aad ayay timaha u bateen maxaa indii timahaada ay yihiin timo xoogaa yara adagna way jilcinaysaa way bixinaysaa nafaqa ayay siinaysaa tan waa mid ilmaha loogu talagalay dhooligaas ay ugu sawiro quruxda badan markii ay ilmaha umri sidoo kaleento way ku raaxaysanayaan wayna u bagaayaan waxayna ku leeyihiin maasha Allah noo mari maasha Allah waxay jecel yihiin ilmaha waxa ayaga ay ku dheelaan oo kale ama dhooliga waa waxyaalahoodii waa alaabahoodii loogu talagalay maxaa inta saliidaha waa isku saliid laakiin acshaabta iyo geedaha aan ku darnay kala duwan maadaama la kala saliida la kala ilaaliyo acshaabta waa mid ilmaha u wanaagsan iyo mid dadka waaweyn u kala wanaagsan acshaabtaas ama geedahaas ama dhirtaas oo ka saacideynaysa madaxa inay nafaqeystaan kobcaan kobciso ka ilaalisa timaha inay qafiif noqdaan timaha waxa qafiif ka dhiga waxa waay fitamiin la'aanta madaxa hayso iyo inay timahaada ay noqdaan timo siibmo timo jajabo timo yani ayaga dhanba buubo inay noqdaan intaas way ka ilaalinaysaa hal cag oo kamid saliida markii aad dhameystid isla markii waxa dareemaysaa natiijo degdeg ah sida maasha Allah ugu bognay ayaa adinkana ugu bogi doontaan biidnillaahi kariim hadii aad tahay hooyo midaas dadka waaweyn qaadanaysa hadii aad caruur haystin midda dadka yar ayaa qaadanaysa hanaansan kids oil iyo hanaansan hair oil waa saliid oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo caruurta saliidaha marka laba siyaabood ayaa loo isticmaalaya hada tan waa tii ilmaha mid dadka waaweyn waa tana laba siyaabood ayaa loo isticmaalaya labada siyaabood oo ah ina madaxaada ku masaaj gareysid oo maxaa inta 6 saac u fiirisid oo 6 saac kadib iska dhaqdi 6 saac ka yar ina dhaqdi ma ina 6 saac ilaa 8 saac kadib ayaa iska dhaqaysa waa ku masaaj gareynaysa waa ku duuduubaysa bac ama mar iyo waxa ku gelinaysa hadii kale tan sooma ahan sida saliid caadiga ah u isticmaalaysa sababta aan u leeyahay waa iska dhaqaysa waxaan isticmaalaysa isbuuci 2 jeer labadaas jeer mar walba oo madaxaada aad dhaqi rabtid ayaa soo qabanaysa waa ku masaaj gareynaysa maxaa inta 6 saac ilaa 8 saac inta u dhaxaysa ku haynaysa kadibna waa iska dhaqaysa sababta aan sidaas u leeyahay waxa tahay saliida ayaa waxa leh wax yar oo riix ayay leedahay yani waxay leedahay ur gooni ah ayay leedahay midaas hadii aad dhibsatid oo kaleento waad iska dhaqaysa hadii kaleeto aad rabtid natiijo degdeg ah inay timahaada ku baxaan natiijo degdeg ah hadii aad rabtid waxa u isticmaalaysa sidii saliidiyo kaleeto madaxaada ka dhaqaysid isbuuci mar ama laba mar sida aad u dhaqan jirto kaleento ayaa u dhaqanaysa maasha Allah waxa arkaysa isbuuc gudihiis timahaada isbedelay midda degdeg resultiga loogu arkaya waxay tahay markii aad u isticmaashid saliid ahaan markii aad u isticmaashid yani massage amal aad u isticmaashid oo aad iska dhaqdid oo isbuuci laba mar aad isticmaashid waxa ka degdeg badan oo isla markii faa'iidada ama resultiga aad arkaysa markii aad saliid ahaan u isticmaashid ifahmaya dad badan ayaa ku soo weydiinaya waxa mar walba aan soo geliyo anigoo wixii sheegay videoga ma dhameystiran waa lagu soo celinaa saliidan mar kale ayaan ku soo celinaa laba siyaabo ama laba jid ama laba way oo isticmaali kartaa labadaas way oo ah ina maxaa inta iska dhaqdid iyo ina madaxaada ku dhaafto oo saliid aan u isticmaashid sababta loo dhaqaayna waa idin sheego wax kale ma aha xoogaa riix yar ayay leedahay ama shiir yar shiirkaas hadii uu ku dhibaayo waa iska dhaqaysaa
dadka qaar ku dhahay ma wana dhibaaho kaleento annaga waa isticmaalnaa dhammaanteen hadda aniga ma iska dhaqo caadiyan u isticmaalaa ilmahayga sidoo kale kama dhaqo isbuuci 2 mar ama markii aan madaxa ka dhaqayo nafaqada u marinayna waa ugu sii daraa kadibna waa u mariyaa waa ka dhaqaa saliidan waxa waaye madaxa markii saliid isticmaalaysto ha ugu shubin sidii biyihii oo kaleeto madaxa markii saliida ka buuxisid geedka markii biyaha laga badiyo wuu dharaa wuuna dhintaa laakiin markii wax qiyaas ah lagu shubo wuu baxaa mar walba iska ilaaliya inaa madaxiina mid aniga hadda iga iibsan dootiin ha ahaato mid meel kale ka soo iibsatiin ha ahaato iska ilaaliya inaa mar walba madaxa saliida ku beegtaan ama ku badisaan wax yar oo macquula ka isticmaala marka saliidan maasha Allah markii saliidan marsatid on qaybta laga dhaqaa aan ahayn dadka aan dhibsanaynin oo kaleeto oo rabaan inay ku dadaashtaan madaxooda degdeg ay nafaqo u siinaysaa degdeg ayayna u bixinaysaa xitaa timaha isgali jiray jiq isku dhahayo isqabsanaa marka la shanlayna gadaal iska qabsanayo kaleento aad iyo aad ay uga saacideynayso waxaan arkay aniga inay maasha Allah timihi furfur ay ka dhigayso ay timihi kala daadinayso ay timihi jilcinayso ay timihi maasha Allah marka maxaa idin leeyahay insha Allah kusoo yaac saliidana idin sida roobka dhagax kusoo dhaha oo daldashta oo isticmaala oo isku nafaqeeya madaxiina sababtoo waxaan arkay inay gabdhaha maasha Allah timaha ay ka dhiban yihiin ay timaha ka daataan waa waxyaalaha isticmaaliga waa aragtay fiidiyoyaal hore oo aan soo geliyay gabdhaha madaxooda ayaga u marin jiray oo isticmaali jiray inkastoo bariyaha aan dhaaf fiidiyoyaasha aan soo geli jiray sabab jir awgood marka maxaa idin leeyahay insha Allah isticmaal saliidan madaxiina si degdeg ayay ku nafaqeynaysaa 2 isbuuc gudahood haduu madaxaad isbedeli waayo waxaan sheegay waa been adika arki doontaan insha Allah laakiin waa goormo waa markii aadan ka dhaqin markii aad madaxa ka dhaqdid waxa waaye resultigaada wuu fogaanaya ugu yaraan 2 bilood way qaadanaysaa laakiin markii aadan madaxa ka dhaqin oo si dabiici ah u isticmaashid oo saliid aan u isticmaashid 2 isbuuc bas ii qabo 2 isbuuc kadibna adiga ayaa soo sheegi doona faa'iidada iyo sida aad ku dareentay timaha maxay siinaysaa nafaqo maxay siinaysaa maasha Allah qoyaan maxay istaajinaysaa gurmashadii aflaaqadii agoolkii timahana way bixinaysaa annaga markii aan saliidan tijaabinayna 3 bilood gabadhi aan ku tijaabiyay timaheeda yacni maxay ahayd way bidsanaa qaybta dhaxama aragta madaxa ayaa timo 2 tin oo dheer bas leela qabanoo inta kale way ka hoobatay markaas way quusatay yacni quus ee istaagtay dhowr jeer fiidiyoosheedu waa ku sheegay quus ee istaagtay marka waxaan dhahay bal igu tijaabi aniga saliidaha isugu dardaray waan u habeeyay marso 3 bilood gabadhi timaheeda dhabarka way ka dagteen adinkana sidaas oo kale ayaan rabaa insha Allah waa qofkii aan ka dhaqin qofkii ka dhaqa oo insha Allah xooga riixdeeda dhibsadan waxay ku qaadanaysaa resultigiisa 2 bilood insha Allah waxaan idin leeyahay channelka hadii ay tahay fadlan maxaa dhacay hadii ay tahay markuu horeyso soo booqato subscribe adikana u sii share gareey asxaabta. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.